السلام عليكم أصحاب حديقها في المسمى كسو الدنيا كجوجتان كسو دوادا بيج كينا يو برتان يوتيوب وكلنا قبل نصدع كسو دو حديقها في المس waad mahadsantahay walaal Sulubow aad baan ugu dhawahay xidigaa films waa YouTube-keygii waa channel-keygii hadda waxaan loo markii koowaadeen ka soo dhaxadlayo laakiin hadda wixii ka dambeeyay waxa la leeyahay khayatan waan ka dhax qadaynaya waan ka dhax cashaynaya xilli walba waan joogi doonaa insha Allah barnaamijyada qayb baan ka ahaan doonaa asxaabta ku xidhan iyo kuwa aan ku xidhnayba waxaan leeyahay horta kuwa aan ku xidhnay ku soo xidhmaan leeyahay halkan aad ka heli doontaan barnaamijyo madadaalo u badan barnaamijyo hidiyo dhaqankiya waliba xidigaa films waxay xoog saartaa intii aan daawanay hidiyo ay dhaqanka barnaamijyada la xiriira garanaysa marka barnaamijyo hidiyo dhaqanka la xiriira nooc walba aad ka heli doontaan madadaaladii baad ka heli doontaan da siyaasadii iyo wararkii iyo wixii Soomaalidu jecleedna kama marna iyadana way taalaa wakaas هذا واجه يحب ويدينيا صفية تصمم عادية أبوانات فنانة صومالية ومدينك يقدم بالسوشيال ميديا هاي ستي كمان نحصل له قرصني نير كذا نوع نقضي بقول يا لبعتين جيلة صح والصعانة يا والله وين يميا هاي ما برانك هين ما فهمتي حات كلا أنا استحد أنا وابا عم كابسن هاي مضيافن تيميا horta Sulubow Safiyad Tusmo yeesigeeda mar walba aan balyeynaa waxaan leenahay isku waara waxaan filayaa bil ka hor inuu meherkoodu dhacay maalintii lagu dhawaaqay lahaa fanaanada Safiyad Tusmo waxa lagu meheray boylatin geela dadka brankiga haystaan kamid aha ana waxaan lahaa waqti xaadirkan Soomaalidu geel way leeyihiin geel fara badan bay leeyihiin qabiil walbana geel waa leeyahay waxay wixii ugu badnaa hablaha lagu kala doonan jiray laakiin xilligan oo moodo in dadku ay geelaba uga xiisa badan yihiin lacagta oo ina taxta haduu ninku nin geel leeyahay ilaa waxaan qaado suuqa geeyo dollar igu soo bedel aniga aad isma lahayn sidaas bay u suurta galaysaa laakiin way hirgashay wax brankiina messengerana waynu wada aragnay دقيقة لغيني صفي كنت أنتنا BBC دان كده جيستي وأنا كي فيديو قناة داون سوا أصلها مي أيامي هوري مقران صدق قبلها والدي راح حسن كوجور سنة كدمنا وحي أمينة يقف إن كانوا بحيين كله عندنا ما ضوء قشة لكن سي بقول إلا بعدين جيله أو ميل هو اللي بحه وقبلنا قاعدين كيقول سنة ما فهمت صح حتى المقال markii arooskooda macnaha meherkooda oo dhamaaday bil kadib aan filaya ba waxay sameysay muqaal maanta la soo galiyay in boolaatinka geela ay sida gacanteeda laga saaray horta Safiyo waa hantiile mar haday maanta boolaatinka geela xiradeeda ku jiraan mid kale ku bogaadeen hanti bay leedahay waxay tii boolaatinka geela 20 kamid ah ilaahay dartii aan u bixinay ما شاء الله ولا يد بوناكسن تهاي وحيدي هذي وحكا بحسي إلهي وقو بركيني مر والبا waxaad bixiso ka badan baa ku soo galaya ma garanaysa marka wax wanaagsan bay sameysay hablo dhow waxa leeyahay raga geel ka qaata qayb sadaqa oo la baxa qayb iska haysta qayb kada waxa soo jira gada hada waxa sababtimo waana Soomaaliyeed bay ku qaadanna maadaama ay ahayd gabar culus oo dee maadaama bulshada meel kasta kaga jirta waxaan leenahay maadaama gabadhan waa isku wada mid laakiin se boqolaatan geela oo qalantaa qiimaha suuqa sixirka kicin baa leeyahay safarinta mid ku dirayo sixirka gabadhan uu kicin Sulubow tusmana way u qalantaa inaan walba Soomaaliyeed laakiin se suuqa joogto u qalantaa ma garanaysaa maanta wax maray boqolaatan geela ninka maanta boqolaatan geela asliide ninkaan waxaynin eeg marka horeba ninkan isagu hanti aan isku hubinayn yaanu fagaaraha bay iskeenin deesolo kolka horeba gurigiisa isku joogo weedii abiya iskala noolaado adeemka waqtigan la joogo geelbadina iska baxso gabdhii hore deemgaranaysa lacag u balaqata gabdhii hore hubqaad kala hay dagaalka deemgaranaysa xilliga dagaalka dhinay adag wadaha ku joogo dagaal bi galaya way galaya raad timaado ma iman bay ha timaado way galaya iyaga ka xariifsan solo iyaga ka xariifsan isbedel baa dhacay rag dumar baa gabdhii hore iyo gabdhaha hadda isku mid ma runta fiican صح ma fahanti xagga adkaysigana gabdhii hore u deeynaa صح ma fahanti marka gabdhahan hadda jooga kulay gabdho waa isku mid weyn markaas taa qiimahooda dimarada ilaahay baa quraan ku sheegay abiyad qiimeeyay abiyad laakiin soo waxaan leeyahay boqolaatinka geela suuq sixirka oo mariya Safiyad Tusmo ay ku qaadan adiga laakiin sanagada habla kale may horta Sulubow ka soo hadal halgi ka bixiyay
maya waxba yar raalgelin ka bixinin anaaba hadda kula taagan baba gabdhaha ku dhiirigelinayo nin aan hanti haysan oo aan idin kafeyn karin hantidaasi yani dollar iyo geel buu noqon kartaa khasama inaad ninka geel ka qaadato ma garanaysaa lacagtu xataa haysto intii baad ku dhufanaysaa wax leedahay intaa baan u baahnay ma garatay waxa la gabdhaha nin aan hanti lahayn oo aan mas'uuliyadiina ka soo bixi karin السلام عليكم تعالوا si gaar ah waxaan kala hadlayaa gabadha soo bila ma garanaysa halka hadda diga daawanayso waxaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay hoos baa kula hadlayaa waxaan ku leeyahay hadii ninkaasi aan 120 halaad aan xirada ka soo kacay nafarta ka saarin barta wax tafta ka ruuy waxay ardaynaysa bas qolaati imika maartay gobol noloshu kaliya ma ahayn oo geel ninkan maleeyahay hanti maleeyahay waxyaalo badan baa jira nolosha hadda laakiin anigu waxa jirta nacas badan oo geel badan haysta hadhowta markaad u gacan gashana farta dhexda ka qaniin doonta ma fahanti geesi badan oo waqtigu ciilo waayuhuna ay waa la helayaa fursad siin baa ma fahanti marka waxaan leeyahay geel iyo hantida hayeegina dumar wax badan qiimeeya ma horta wax badan ha qiimeeyaan waa run oo sida uu soo sheegay dad nacas waxaan ku yiri aad gacanta aad u gasho dee aday dhibaato ku noqonaysa wax hanti ku tirimayso laga bixiyo hablaayo anigana 130 ma raba oo skorkaasan raba inaan jabiyo hadhowta fartaada ka qanin doonto aday dhibaato ku noqonaysa laakiin waxa la helayaa nin wanaagsan oo fariida oo geesigaad sheegtaya oo hadana geel leh may hadda waxa jirta noloshu wax dheeli tira ma jiraan ma fahanti waxa jira geesi aan waxba haysan waxa jira nacas waqti uu helay sax ma fahanti marka ninki geesiga ahaa wuxuu la soo bixi doonaa dhagax sax iyo shub uu kala soo dhexbixi doonaa lacagta abiya nacaskana wuxuu helayaa fursad fudud buu ka helayaa abiya gabadh geeya oo qurux badan oo ilaahay hiba siiyana way u gacan geli doontaa hadhowtana wad baroon doontaa 130 waa laga marka fiidsmo waxaan balyeynaa dhamaan cid kasta oo familkeeda waxaan leenahay hambalyan leenahay abiya safeedsmana aroswaan balena aroswaan marka insha Allah barnaamijka intaasaan ku soo koobinaa waxbarashada sax may weedan tahay hablahana waxaynu leenahay taladii horena mid baahida tan dambe waxay leeyahay inanay hadii aad hesho qof aad jeceshahay oo aad ku qanacsan tahay isaguna ku jecel kugu qanacsan nololtu dooni baa ku noolaaday isku aad yani xataa isku age-naad inoo nolosha wada dhisan kartaan qofka weyn waxa dhici karta inaan isfahmo weydaan garanaysan oo kasoo horjeeda guurka ragga la guursanayo laakiin waa taa kasoo horjeeda laakiin taa bedelkeeda may wadaxda waa kasoo horjeeda taa bedelkeeda waxaan taageersanahay gabdhaha waaweyn iyo wiilasha dhalinyarada guurka dhexmaray ninka dhalinyaradii araga wax badan soo joogay oo doonaya insha Allah inaad khibrad ka qaadato mu ka aqli badan laakiin wiil yar oo hadda saa usiga boodboodaya ma ka aqli badan ninka haduu ka weyn yahay nolosha intaad koogtahay ka badan oo koog yahay ka aqli badan yahay garanaysaa laakiin taa bedelkeeda wiilasha dhalinyarada hadii ay helaan gabadh xoogaa ka da'weyn oo jecelihiin ha guursadeen ma garanaysaa talada waa intaa qof walba noloshiisa isagaa agawada ninkaa doonta guursa nina wataa doonta guursa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa xidigaha filimis mar walba kaftan entertainment barnaamijyadii dhaqanka waxaasoo dhanba way idin soo socdaan sanadka cusubna insha Allah barnaamijyo wanaagsan oo sanadka cusub loogu talagalay daawan doontaan insha Allah daweyna waanigoo suluba yani nasteexa نحتني ويو نبار البولبار نفسي